kan waxa uu la sugan Ismaan Cabdi Tahliil oo mid ka mid ah dadka deegaanada ku xiran santarka Laascaanood waxa uu keenay istaalkan bukaano bal Cabdi Ismaan oo warbixin waxa naga soo bukaana istaalkan keentay iyo waxaad kala kulanteen Bismillahir Rahmanir Rahim aad iyo aad ma santiin walaalayaal isbitaalkan wuxuu kan santarka Laascaanood san yahay ugu yaraan 22 sano adeeg caafimaad loogu talagalay agabku waa yaala laakiin wuxuu salahayn dawadii iyo dhaqaatiirtii loogu talagalay ayaan jooginin dhaqaatiir hal dhakhtar oo jooga Itoobiyan ah jooga asagaas wax yar mar dawo yar keena waxaan ka soo kacnaa meel ku sugan 25 kilomitir meel aan ka soo kacnaa waxaa jira ambalaas la'aan waxaa jira halka dawo yari waxaa jirta isbitaalka oo aad adeegyadii loogu talagalay aan lahayn baa jirta isbitaalku markuu u baahan yahay waxaan u baahanahay naqdanahay shacabka waxaan u baahanahay halkan la yiraahdo waxyaalo badan loo fiirsho cabashada loo fiirsho bulshada isbitaalkan marka dayac weyn baa ka jira aad iyo aad u balaaran anagu hadaan nahay shacabka ku nool santarka Laascaanood si loogu talagalay uma helno adeegyada loogu talagalay ma helno waxayna ka imaan weeday degmada nooga imaan laadahay oo dawadanadii iyo adeegyadanadii ku haysada ku dhagan maxaad baaqo u diraysaa dawladdeegaanka Soomaalida oo aad ka tirsantiin dawladdeegaankan ka tirsanahay waxaan baaq u dirayaa ugu horeyn waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha kililka mudane Mustafa Maxamed Umar oo ugu sareeyo xubinta ugu sareysa ah asoo hadda waxyaalo badan hadda aan ognahay inay ka dhaceen isbedelo weyn ka dhaceen kililka anada aan dareemayno haddana waxa weeyaan waxaan u dirayaa baaq ugu dirayaa waxa ugu daran dadka bini'aadamka waxa baahida ugu weyn waxay tahay waa biyaha waxa ugu horeeya waxbarashada caafimaadka intii midna ma haysato santarkaano bal waxyaalaha kale oo asaasiga iyo xuquuqda ay leedahay inta u kaadisid marka waxaan leenahay mudane madaxweyne arintaas iyo golaha wasiirada arintaas si degdeg u fiican cabashada si degdeg u fiirsan oo yagtaan hadii aan hay halkan yiraahdo bulshada deegaanka Soomaalida dadka tirsanadaan macna فاسمع laga jawaabaha si degdeg hadii lahayn Cabdi Ismaan Tahliil oo kamid ah dadka soo boqday maanta dadka istaalka guud ee santarka Laascaanood ay ka jirto baahi caafimaad oo fara badan sida indhihiinaba ku arkaysaan aadna ka arkeen muuqaaladan kula wadaagnay bartan halkan waa hel santarkii Laascaanood hel santarkan waxaa la dhisay 2010 haddana waa 2020 15 sano wax dayactir amayn wararka sawirka arka doontaan sawir baa laga qaaday 15 sano wax dayactir iyo wax adeeg muslimiin ambalaas bulaha ambalaastii waxa ka xistay degmada 36 qabale oo 300 kilomitir u jida santarka Laascaanood haweenka ku dhala ambalaas soo qaaday lama hayo diglaan baa waxa u dhimatay Semberi ilaa dad ka fara badan bishii ilaa 20 haween away muraacda oo diglaan digbax dhimata heesan tarkaan iyo heesan tarka silaabo waa isku tay xaq tayada adeegyada meesha ka dhima baa sheegay 150 qof baa ka shaqeysa halkaana waxaa jooga 3 nin wiilkaas xabashiga iyo 2 kale wiil ma helaan dawo dhibaato noocaas oo fara badan baa ka jirta dhibaatada caafimaadka ka jirta waa taas ugu fara badan hadda iskoolka kale waxaan noo dayactiray sidaan oo kale ugu burbursanaa adeeg kama jirin waxaan noo dayactiray niman xaldoon la yiraahdo golba jooga cid kasta ay qusayso marka waxaan ka codsanaynaa in dhibaatada si amarkiisa looga soo jawaabo ka jirta hel santarka Laascaanood adeegii loogu talagalay kama jirin hadda ka hor waxaa dhacday madaxaseedka degmada caafimaadka joogay ka horeeyay hadda ka hor baa wuxuu keenay ambalaas dawaan keenay tiir wuxuu keenay galoof iyo suuf muqaatiba hay saraakiil baa joogtay ciidana
والله أكيد يبالغش هذا اللي كان شو عفمتك حير هدول كان لكن وحمسوا جرسيا قفوا حسميان إن حضرمها لكن كم وصل هو بلشيك كنا عفرتم كن أوبس بعد كن دراسات كل سمي قدام بيجي لسمي عفرتم كنا بس مركز الغرفة على قوس لح العالم في الدراسات مركز سمانية الله بقول لي عفرتم كن أوقف هل كرتون اللي هو مركز ما فعيا أنا كمان فعيا marka cid kasta ay qosaysa qaran joog iyo qurba joog iyo cid kale ay qosaysa waxaan ka codsanaynaa hawshaas in jawaab amartiisa laga helo dayactir buu u baahan yahay daw u baahan yahay shaqaale u baahan yahay ambalaas buu u baahan yahay saddex nin baa ka shaqeysa kuwa bilashinka aan soo sheegnay inta leegna baahiyada ma ka fikir